qaar kamida qurbajooga ka soo jeeda gobolka Awdal oo taakula bilaadantinimo ka gacan geysanaya hooyo iyo wiil ay dhashay dhimir qaba oo ku dhaqan magaalada Boorama gudaheeda taakulo bilaadantinimo ka geystay waxana ay u dhisteen aqal jiingada kaasi oo kolkii hore ay deganaayeen aqal dasa ah Hiba Cabdi Yuusuf Ruqiye Maxamed Cabdi iyo Ahmed Sultan Sulaiman ayaa ka warbixinaya taakuladan bilaadantinimo ee ay soo gaarsiiyeen qurbajoogaas iyo qaabka ay ugu hawlgaleen waxana ay uga mahadnaqeen dhamaanba cidii ka gacan geysatay sidoo kalena waxay baaq u direen bulshada ku nool magaalada Boorama inay ka gacan geystaan cid alla cidii gargaar bilaadantinimo u baahan waxaan ka soo sameynay video muuqaal ah oo aan soo gelinay internetka intaas markay dhacday waxa soo gurmaday ummad badan oo khayr jecel oo dad Soomaaliyeed qof walibana wuxuu geystay karaankiisa iyo wixii uu tiri karayay dadkaas dhibaatadu haysatay dadyoga inta badan sida xooga yani uga soo qayb qaatay ee hawshaas fududeynteeda anigoon kala saarin si guud waan ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda muslimiinta ay tabarucaadkaas yani gacanta ka soo geysatay guda iyo dabadba anigoon si kala qaadqaadayn waxaan jeclahay inaan mahad ballaaran gaarsiiyo hooyo Hiba Cabdi Yuusuf oo runtii suurta gelisay in dhismahan uu qabsoomo maadaama anigu waqti ugu yara ardaynaan ahay iyadoo waliba xaasley oo reer leh haddana waxay intaas oo dhan yani uu halgamaysay oo u shaqeynaysay dadka masaakiinta sidii loogu heli lahaa hooy ay degaan musqul ay ku gutaan xaajadooda inay noo helno dadkaas intii bixisay markii hore intii khayrkaas markii hore yani ama sabab dib u dhac ama sabab kale uu ku dhaafay walaalayaal inaad khayrka ku soo darsataan soona dhameystirtaan intaasaan idinku codsan lahaa waxaan jecelahay waqtiga oo gaaban darteed inaan hadalka ka baxo waxaan idinkaga baxayaa walaalayaal lacagtiinii aad soo dirteen sadaqadiinii aad soo dirteen sidaad ugu tala gasheen baan ugu fulinay meeshii aad ugu tala gasheenna waanu gelin ku caawinay walaalahayga dhibaataysan oo loo hirgashay muddo 2 biloodana noo socotay maanta inaga soo afjarantay waxaan dadka islaamka ee muslimiinta ku codsanayna meel kasta ay joogaan dadka dhibaataysan inay soo caawiyaan intii hore uga tagtay maanta dib gadaalnay gargaarka ka soo qayb galaan waxa weeye horta wax kasta waan iska indha tiraynaa inta qurbaha joogtun ma inay dadka ay joogaan waa dadka awdal ku nool wax kasta iska indha saabaan oo wax kasta inagoon inaga tagayn ayaabaan haddana indhaha ka jeejeesanaa dadkaasi iyo dad kale oo ka daran iyo dad kale oo aad u dhibaataysan iga way buuxaan waxaan codsanayaa dadka ii micimay ee iga farxiyay deegaan ahayn bay deegaannimadaydi muujiyeen fayskii ay bisaduhuna ayna gelayn bay iga soo saareen farxadda iyo balballaarka iyo firaashyada bay siiyeen marka adduun weynaha nolol kuma haysanin nolol ma tirsanin aniga dadka aan hayo ee dhibaataysan taa iga baxsatay iyo kaaba waxa iga dul qaylinaya 3 cisho cunto maana sii anoon waayeen qof Soomaali oo jaarkayga uga waayay beer bay waalayay dabadana ma aan helin 3 maalmood soo doon imkana Allah ii soo dhaway imkana in ka ardayeen hooyada hayay caawiyo dadweynaha ay tusay dalka joogay ku dibadaha joogaba horta mahad waxaan ugu celinayaa janna firdawsi inuu alla geeyo isagii wixii ummadda nabiga qayrkiisa iyo ku xigiisa waalidadiisa Allah ka jasaayay midka labaad waxaan codsanayaa ablaha dibadaha jooga mahad ugu celinayaa dadka ay miciimay dibadda daliilada iga soo xareeyay inuu ilaahay mahad iyo khayr bay ilaahay si caafimaad si cadow ilaahay ka indha saabo uu janna firdawsi alla siiyo uu xoogooga ilaahay u xasiliyo uu ilaahay xoogaa ay soo direen wax ka weyn ilaahay u soo galiyo yan ilaahay ka jasaayay oo nu dacaynaya ay sida ay Ahmed Diriya Ibtire Raya TV magaalada Boorama